65 sano ayuu ka shaqaynayaa dowladnimada Soomaaliya. Qofka aan ka hadlayno waa Xildhibaan Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan Dhabancad. Waa shakhsiga ugu da'da weyn Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad. Xildhibaan Dhabancad waxa uu ka mid yahay xildhibaanada sanadkan ku soo biiray baarlamaanka. Waxa uu soo noqday gudoomiyihii ku-meel gaarka ee golahan intii aan la dooran guddoonka. Kulamada Golaha Shacabka oo qabsooma toddobaadkii 3 maalin, Xildhibaan Dhabancad in uu yahay qofka ugu da'da weyn kama aysan hor istaagin in uu noqdo mudanaha ugu horeeya ee yimaada xaruntan, soona xaadira kulamada Golaha Shacabka oo marar badan u baaqday kooram la'aan. Waa sifo ay yar tahay in laga helo siyaasiyiinta Soomaalida, kuwooda dhowaangalka ah iyo kuwii horeba, in ay jaangooyaan jadwalkooda shaqo ee maalmeed. Xildhibaanka ayaana maalin walba ka maqnaan kulamada golaha. waxaan u ilaaliyaa dee mas-uuliyad waa lagu ballamay. Habeenka waa la soo diraa, wareegtaa la soo diraa, waxaa la yidhaha xildhibaanada sharafta leh waxaa laga rabaa 9 inay yimaadaan. waxaa xoogaa dhiba weliba keenay dee 9 markaad socoto ciidan baa kula socda. ciidankaas meeshan sooma geli karaan. waa in la geeyaa meel ay ku sii nastaan inta hawshu fududaanayso ama dhammaanayso. marka 20 daqiiqo waxaa kaa qaadanaysa ama 15 daqiiqo inaad ciidankaas meel geyso ay kuna nabad galaan oo kuna nastaan. marka dee haddii lagu ballamo la yidhi hala yimaado, dee xil baad qaaday, waa lagu dhaariyey, waa hoggaansamaha tiri. waqtigii lagu ballamay in la yimaadaa waa nidaamka adduunka ka socda. laakiin markaan rabaan imaanaya hadday tahay dee ma ahid qof u hoggaansan nidaamka iyo waxa ka socda golaha. saasaa i keenta saacaddii lagu ballamay inaan imaado. Xildhibaan Cabduqaadir Xuseen Uurdoox oo ka mid ah xildhibaanada dhowaangalka ah ee golaha ayaa sheegay in Xildhibaan Cabdisalaam Dhabancad uu ka qaato tilmaamo iyo tusaalooyin wanaagsan. ka xildhibaan ahaan aniga horta waxay ii tahay fursad in nin intaas oo khibrad intaas la eg leh inaan maanta baarlamaanka wada fadhino. aniga ahaan dareenkayga markaan la fadhiyo iyo markaan la sheekeysanayo wax badan aan ka faa'iidaa, waana aadaan ugu faraxsanahay. Dhabancad markaa la sheekeysatid wuxuu aad kaaga sheekeynayaa dowladnimada siday ku dhismatay, sida ay ahaan jirtay, diblomaasiyadiisa ugu shaqeeyey, meesha laga soo bilaabay dowladnimadan hadda curdanka ah oo hadda dib u dhiska dalka hadda ku socdo. marka wallaahi fursad weyn oo weyn ayay aniga ii tahay 4 sano inaan ka faa'iideysto. Ka sokow in uu yahay xildhibaan, waxa uu sanooyin 60 sano ka badan uu ka soo shaqeeyey arrimaha dibadda Soomaaliya. waxa uu ka mid yahay shaqaalihii lagu bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyaddii Soomaaliya berigii gumaystihii Talyaaniga. Haddaba ha inoogu warramo waayihiisii waqtigaas. shaqada dowladda oo rasmiga waxaan ku soo biiray intii Talyaaniguusan dalka ka bixin 2 bisha 3 1958. dee Talyaanigii waa tegey, meel baa tacliin baa la ii diray, waa soo noqday iyadoo dowladnimadii ay maalmo ka hareen, muddo kooban oo yari ka hartay. marka 1 Julaay waa tii la qaatay xorriyaddii, waa fasax bay ahayd. 2 bishii 7 Julaay oo maalinta xorriyadda ka dambeysay waxaa la asaasay wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana lagu bilaabay 3 nimoo madaxa oo ah wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud iyo 5 karaanyaala oo anigu aan ka mid ahaa. 2 Luulyo 1960. inta badan heerarka diblomaasiyadda aad ka soo shaqeysay meel kale ma tegin. 62 sano hadda la soo dhaafay arrimaha dibaddaan ahaa. baarlamaankana sanad bay ii dhammaatay 13 bishan hadda lagu jiro. marka ilaahay caafimaad iyo cimri dheer buu siiyey. weligayna dee anugu shaqaale dowlaan ahaayo dhibaatana uma geysan, anigana la ima geysan. Cabdicasiis Okay, Universal TV, Muqdisho.